السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharkeeni afraad ee barashada Adobe Premiere Pro. Casharka maanta waxaan kaga hadli doonaa codadka iyo sida aad u gaabin kartid, sida codka u dhigi kartid meesha, iyo sida aad codka u isticmaali kartid Adobe Premiere Pro. Sidoo kale waxaan kusoo qaadan doonaa transition-kii amaba u dambeeyay aan soo dejinay video ka horreeyay waxaan isku daynaa inaan soo gelino Adobe Premiere Pro. Marka casharkana maanta saas ku saabsan yahay, isla aragna marka. Okay, codka marka u horeysa aad soo gelinaysa harta just waxaad soo gelinaysaa sida video oo kale, laakiin haddii aad inta u fiirsatay meeshaan waxaa ku qoran meeshaan F1, F2, F3 oo ay ka dhigan tahay video koowaad, video labaad iyo video saddexaad. waxaa kasii hooseeya meel ay ku qoran tahay audio 1, audio 2, audio 3. waa codka koobaad, codka labaad, codka saddexaad. marka mar walba aad dhigaysid cod Adobe Premiere Pro-ga, meeshaan ayaad dhigaysaa xaggan ay ku qoran tahay audio. haddii aad codkan isku daydid inaad xaggan dhigtid ma kaa yeelay, sababtoo ah codka waxaa lagu talagalay meeshaan audio ay ku qoran tahay. marka xaggan ayaad ka arki kartaaba audio 1 iyo audio 2, audio 3. xaggaana waa meesha videoha. marka codkan sometimes waxaa dhici karta inuu aad rabtid inaad yara gaabisid amaba inaad yara dheeraysid. codkaaba laga yaabaa in uu yara gaaban yahay ama inuu yara dheer yahayba. marka sidee baad codka uga gaabin kartaa, codkan u yareyn kartaa? waxaan sameynaynaa in marka hore aan ku dhufano codka, kadibna meesha haddaan tagna ay ku qoran tahay window, kadibna aan kusii dhufano audio clip mixer. audio clip mixer markaan ku dhuftay waxaa arkaysaa in la isoo saaray audio 1, audio 2, audio 3. waa saddexdan meeshan ay ku qoran tahay audio 1, audio 2, audio 3. waa saddexdan waaye. marka kii koobaad kala waa kana. haddaan rabo inaan labada codba aan hoos, waa ka labada cod hadda igu jiro waaye. haddaan videohan daaro wax cod ma lahaanayo. sa arki kartidba video haddaan daaro wax coda ma lahaanayo. marka haddii aan rabo mid ka mid ah inaan xoogaa yara gaabiyo, kan kalena xoogaa yara dheereeyo, waxaan samayn karaa kan koobaad kan xaggan yara geeyo dhexda ah, kan aan wax yar ku daro ilaa maybe xaggan. marka haddii hadda aan video daaro waxa laga yaabaa inuu aad kor u yara qayliyo, laakiin sa arki kartid ba hadda video codkiisa waa maqli kartaa. so markii codka habeenaysa saas waaye Adobe Premiere Pro oo aad buu u fududahay codka. okay, sidoo kale haddii aan rabno codka inaan jarno ilaa inta videohan xaggan, haddii aan rabno inaan jarno waxaan samayn karnaa inaan Razor toolkii aan horey u baranay inaan tagno, kadibna markaan ku dhufto Razor toolkii aan jaro ilaa xaggan, kana sidoo kale, kadibna aan ku laabto selection toolka, kadibna aan click siiyo, kadibna keyboardkayga ayaan waxaan leeyahay delete ama waxaad samayn kartaa inaad click inta siisid aad cut ku dhufatid. so waxaad arkaysaa hadda codkii iyo in isla eg yihiin iyo video. marka cod markaad soo gelinaysid saas waaye, aad buu u fududahay. okay, sidoo kale waxaan rabnaa transition-ka u dambeeyay aan soo download garaysanay. haddaad xasuusatid markii aan tagnay transition casharka horreeyay. so aniga hadda mid ayaan already soo dejinay oo kan ayaan la soo degay. marka adig ka rabtay ayaa la soo degi kartaa, adig ku xiran tahay. marka transition-ka markii aad la soo degtid waxaan ku sameeyay extract oo marka kuu soo dego waxaad click ayaa siinaysaa, kadibna waxaad ku dhufanaysaa meel ay ku qoran tahay extract all. kadib extract marka aad ku dhufatay laba ayuu kuu sameyn doonaa. laba marka uu kuu sameeyo ama waxa laga yaabaa inaad confuse ku noqotay aan hadda mid cusub isla soo degin aan la soo degno. okay, kan oo kale ayaan hadda la soo deginaa. okay, download for free template ayaan ku dhufanayaa.
okay. So hadda waa la iisoo dejiyey. Haddii aan ku laabto waa kana. Markii hadda aan ku dhufto ayaa waxaan ku dhufanayaa extract all. kadib markaan extract all ku dhufto ayaan haddana waxaan leeyahay extract, okay. kadib laba la iga dhigay. kadib markii laba la iga dhigay waxaan sameynaya inaan ku laabto inta. waxaan isku dayay inaan soo geliyo meeshaan meeshaan important file ayaan isku dayay inaan soo geliyo. click ayaan siinayaa. kadibna waxaan tegayaa meeshaan waxaan ku jira waa kana kii u dambeeyay. kadib open ayaa dhihi kartaa. okay, open my folder inaan ku dhufto waaye open. okay, folder markaan ku dhufto folderka ayaa la isoo gelinaya. okay ayaan taabanaya haddana. okay markaan taabto hadda waa kana folderka meesha ku jira. haddii hadda aan isku dayo folderka inaan furo tusaale oo kale transitionkiisa kan oo kale kadib marka aan furo waa kana transitionki waxaa la igu fura timeline cusub. waxaan sameynayaa marka inaan saas inta dhaho highlight gareeya isagoo dhan ilaa intaan. okay, kadibna inaan ku laabto timeline-kaygii. okay, inaan soo jeedo waaye. inaan aad transition dheer waayo bismillah. okay, so waxaan sameynaya inaan highlight gareeya isoo dhan. okay, kadibna inaan dhex dhigo xaggaan. okay, so video haddii aan ku laabano aan soo yara bilowno. okay, codkaan haddaan hoos isa yara dhigno. okay, ujeeda transitionka so transitionka hadda aan soo gelino meesha waa sida tan. oo marka wax yar socdo waxa soo geliya 15. okay, marka transition markaa soo gelinaysidna aad kala soo degtana saas aad samayn kartaa. codkana sidaas ayaad u hagaajin kartaa. marka intii transitionkan hadda mid professional waaye oo kuwan kale waa ka maarmi kartaa oo kuwan ayaa la soo degi kartaa kaa rabtid. marka khasamaha kan kaliya inuu noqdo kuwa kale la soo degi kartaa. marka cashirkan maanta intaan ayaan ku ekeysiinaynaa transitionka iyo codkan sa u hagaajin lahayn. waa inay casharka dambe insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.